ماما سايتاي حالة كورن وحمراي جد كامراي وانكوسو لحد مركا كورن ما أنت كورن جوي مقالة حالة كورن ماشي أنا أسكفر يسي ماشي أنا أسكفر يسي وحقديس يقلمانا قديس هاي halkii qalin meeqo maama laba xabo halkii xabo 3 kuna gadaa hadii laga gado waa in labada xabo ku shil la gadaa haye wixii meesha iska soo baxa waxa ku maraysa nolosha familka ku maraysa ilmaha ka xanuunsan haye meeqo cunuga dhash waxa dhash 8 cunuga dhash 4 cunuga curiyaan xanuunsan haye meeqo sano jira هل سنو جرا وانا نافو ما فديساي ما استاغاي waxba rajo ma laha okay si aan ogaano xaaladda ilmaha kale saddexda kale ilmaha naafada ay ku sugan yihiin macquul ma tahay inaan wadid oo gurigaada aan geysan ayigee kale gurigaas arkaysi ilmaha xanuunsan waa kale meel iska yaalaan ilmaha waxaan suuyin meel iska yaalaan marka waxaan rabnay ilmahaas inaan soo aragno si xaaladooda bulshada aan ula wadaagno marka waxaan rabnaa inaan nawadid oo ilmahaas aan u geysan waxaan haystaa 4 cunug oo naafee waan hadiyo ilaahay si waan ku qanacsanaa alxamdulillah afartooda waa naafo afartoodaba waliba gacmaha iyo lugaha ay naafo ka yihiin qoorta ugu daran bay naafo ka yihiin qoorta ma cishahayaan 3 qoorta ma cishayso midna gacmaha iyo luguhu ka yaa naafo waan ku qanacsanaa alxamdulillah inta ilaahay si mahad waa hooyo ma santahay anagana ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in ilmaha uu ku caafiyo caafimaadna uu ku siiyo amiin 4 qof oo naafo ah lugaha iyo gacmaha iyo sulka ay naafo ka wadan yihiin xanuunkaas bulshada la wadaagayna si ay uga soo jawaab celiyaan insha Allah marka haddana waxaan rabnay hooyo maadaama lagu jiro bishii barakaysnaad ee Ramadaan ee soo socota maalintii ciida in ilmahaaga aan kaaga farxino si adiga ugu ciidsiisid ma sha Allah marka si walba naafo yihiin laakiin waxay u baahan yihiin in maalinta farxadda maalinta ciida in ay helaan muuqaal ka duwan muuqaalka soo isma sax waa marka taasna waxa ku soo dhiibay walaalo Soomaaliyeed oo ku sugan qurbaha oo ayaga xanuuno qabo la rabo in loo duceeyo si Ilaahay duruufaas uu uga qaado marka walaalo Soomaaliyeed ee qurbaha kuna waxay suurto geliyeen in ilmaha oo naafo ah maalinta ciida ay dad kala damaashadaan ila farxaan khayr badan Allah siiyo kala duceeyana inaan ku guddoonsiino lacagtaas waa $300 $300 waaye waxa la rabaa ilmahan maalinta ciida ah in wixii dhar iyo waxyaabo ku baahan in uu gudid wixii u soo haraana in noloshooda ku maarisid insha Allah anagana waxaan ku balan qaadeynaa in fariintaada bulshada aan la wadaagno meel dheer aan gaarsiino insha Allah soo fahmin hooyo waa fahmin marka haddana xarna aan naga gudinta lacagta khayr badan Allah siiyo dadkana soo dhiyana u duceeyana wixii jirana caafimaad Allah u siiyo kana wixii daruufeysana daruufta Allah ka dul qaado waxaa u duceeyay dadkii deeqdan soo gaarsiiyay guur rabo guurkiisa Allah u sahlo kii kale too xanuunsan Allah u caafiyo inta muslimiin oo dadka taakuleysana taakuleen Ilaahay xaqiisa uga timaado intaas ugu duceeyana inta waalidiintooda inta Ilaahay u naxariisto janno firdawsan Allah ugu bishaaray waxaana ka sii codsanaynaa inay naga warqabaan 4 cunug oo naafo qofkiisa kullee ma shaqaysan karo inay naga warqabaan ugu duceeyana ay kana khayr badan Allah siiyo anakana caafimaad qaar qaba Allah na siiyo anakana u duceeyna